yaa naga mid ah oosan garanaynin tixsiga. Dhammaanteen tixsiga waxaynu ku aragnaa guriga, shaqada iyo wadooyinka iyo meel kasto. Casridii la soo dhaafay insaanka way xaqireen tixsiga, waxayna ka dhigeen xasharaad liita. Waxayna u isticmaaleen tixsiga si ay uga takhalusaan wadooyin kala duwan iyo awood kasta oo ay lahaayeen. Sidaas ay tahay xataa insaanka ma uusan ka nabadgelin tixsiga. Wuxuuna kaga degadaa cuntada iyo shay kasta. Tixsiga waa xayawaan fudfudud jecelna inuu wax kasta lagu halagalo. Arrinta la yaab kale ayaa ah inaynu ku aragno guryaheena iyo wadooyinkeena 10 nooc oo kaliya oo ka mid ah tixsiga tiradiisu ay gaarayso 100,000 oo nooc. Waxaana ugu caansan tixsiga caadiga ah kaasoo ku aragno guryaheena iyo deegaankeena. Kadib markii ay isku tagaan mid dhadig iyo labka, mid dhadig waa ay soo degtaa waxa ayna dhashaa wax aan ka yarayn 75 ukun, aan ka badnayn 100 ukun. Waxa ayna ku kor dhashaa xayawaanaadka baktiyay ama qurmay, ayada oo ku talagalaysa in marka ukmuhu ay dilaacaan ay heli doonaan cunto ku filan iyo hooyba. 8 ilaa 20 saacadood kadib ayay dilaacdaa, waxaana ka soo baxa tixri ama dhase kaas oo quuto baktiga ama qurunka. Waxa uuna tixri ama dhase sii ahaadaa 3 ilaa 7 maalin oo kaliya, kadibna waxa uu galaa xaalad ku meel gaar ah, waana marxaladii ugu dambeysay. Waxa uuna ku nagaadaa 3 ilaa 4 maalin oo kaliya. Inta lagu guda jiro xaaladaas waxa ay unugyadiisu dib u abuuraan baalal, lugo iyo xubnaha jirkiisa oo idil. Kadibna waxaa ka soo baxda tixsi garbaheedu ay qoyan yihiin, aan awoodin duulimaadka. Xogaa kadib ayay awoodaa, waxaana 4 ilaa 12 saac kadib ayay dhashaa ukun. Tixsigu waxa uu maraa meertarood kala duwan: ukun, marxaladda koowaad, marxaladda labaad, marxaladda saddexaad, kadibna xaalad ku meel gaar ah, kadibna wuxuu isku beddelaa tixsi caadi ah. Xaqiiqada la yaab kale ee uu leeyahay tixsiga waxaa ka mid ah: tixsigu ma lahan calool. Caloosha muhiimadeedu waa inay burburisaa cuntada kana dhigtaan wax yar oo jirku isticmaali karo. Hase yeeshee tixsigu jirkiisu ma lahan calool wax u burburisa. Tixsigu ma lahan calool iyo ilko toona. Wuxuu ku soo daayaa cuntada intuusan cunin ka hor dheecaan, kaasoo u burburinaya cuntada, kadibna afkeeda dheer ayay ku dhuuqdaa. Si toos ah waxay ugu dartaa dhiigga, sidaas ayaa jirka oo dhan lagu gaarsiiyaa. Wuxuu gaaraa wadna garaaca tixsiga halkii daqiiqo 1,000 oo garaac, halka wadna garaaca insaanka uu gaaro halkii daqiiqo 70 ilaa 80 garaac. Wuxuu u duuli karaa dhinac kasta, wuxuuna si degdeg ah ugu dhaqaaqaa meel ilaa meel kale. Halkii saac wuxuu jaraa 8 kiiloomitir. Wuu xanuunsadaa, wuuna xanaaqaa, waxna wuu dareemaa. Tixsiga wuxuu u noolaadaa 84 maalin oo kaliya. Wuxuu leeyahay 6 indhood, il kastana waxay ka kooban tahay 1000 cadasooyin oo uu wax ku arko, sida 6 geesoodka oo kale ah, kaasoo araggeeda ka dhigaya mid awood badan. Xasuusta tixsiga ma dhaafayso 5 ilbiriqsi oo kaliya. Waxaa jirkiisa laga helaa antibiotics. Bilowgii qarnigii la soo dhaafay ayaa saynisyahannadu waxa ay daaha ka qaadeen inuu ka kooban yahay tixsiga jirkiisa cadad fara badan oo antibiotics ah, kuwaas oo loo isticmaali karo in lagu daaweeyo dhowr jirrooyin oo ku dhaca insaanka. Sababta looga helay maadadaas jirkiisa waxa ay tahay sababtoo ah waxaa jirkiisa laga helaa dhowr bakteeriyooyin kuwaas oo dhib u keeni kara naftiisa. Sidaa awgeed, Ilaahay baa u hibeeyay si uu uga difaaco naftiisa. Nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri: haddii uu ku dhaco tixsi, cabitaan midkiin ha ku tiimbiyo, kadibna ha ka soo saaro, maxaa yeelay labadiisa garab mid waxa uu ku sitaa cudur, midka kaleetana daawo. Nabigeena suuban ayaa noo sheegay 1400 oo sano ka hor inuu tixsigu wato jeermis iyo waxyaabo ka hortagi kara jeermiskaas, laakiin saynisyahannadu waxay ogaadeen bilowgii qarnigii la soo dhaafay. Tixsigu waxa uu ka mid yahay xasharaadka Qur'aanka lagu dhex sheegay, waxaana looga hadlay aayadan oo macnaheedu tahay: dad yahow, waxaa la yeelay tusaale ee dhegeysta. Kuwaad baryaysaan caabudaysaan eebba ka sokow ma abuuri karaan tixsi, haba u kulmeene. Hadduu ka qaato tixsina shayna kama ceshadaan. Waxaa tabar yar kan wax laga dooni iyo kan dooniba. Faa'iidada tixsiga: waxa uu nadiifiyaa hawada, waxaa laga sameeyaa daawooyin, waxa uu fududeeyaa taranka dhirta fiyooraha leh. Waxa uu nadiifiyaa hawada sababtoo ah waxa uu cunaa xayawaanaadka baktiyay kuwaas oo hawada ur ka dhiga. Tixsiga marka uu marayo marxaladda tirxiga waxaa laga sameeyaa maadooyin lagu daaweeyo dhaawacyada jirka bini'aadamka ku dhaca. Tixsigu waxa uu ka mid yahay xasharaadka ka qayb qaata taranka dhirta, waxa uuna qabtaa shaqo muhiim ah. Wuxuu ka soo qaadaa faxalka fiyooraha kiisa labka ah, waxa uuna geeyaa fiyooraha kiisa dhadiga ah. Faxalka waa waxyaabo budo oo kale ah oo dhirtu ku tarmaan. Tixsiga faa'iido daradiisa: waa xasharaad dhib badan, waxa uuna u gudbiyaa dadka cudurrooyin fara badan. Tixsiga waxaa lagu tiriyaa xayawaanada kuwooda dhibka badan sababtoo ah dadka ayuu ku wareegsadaa, waxa uuna ka galayaa indhaha, afka, taasoo qofka ka dhigaysa inuu xanaaqo. Tixsiga dadka waxa uu u gudbiyaa jeermisyo fara badan. Jeermiska ayuu soo qaadaa, kadibna waxa uu u gudbiyaa cuntada, kadibna sidaas ayuu qofka ku cunaa. Waxaa la aaminsan yahay inuu dadka u gudbiyo ku dhawaad 65 cudur. Cudurradaas waxaa ka mid ah shubanka, tiifowga, iyo qaybo ka mid ah cudurrada indhaha iyo daacuunka.
sida aad ugu badbaadi kartid tixsiga. Nambar 1 ku dadaal nadaafadda. Nambar 2 u isticmaal tixsiga geedo urkoodu u neceb yahay. Waxaad isticmaashaa dhagayare iyo liin. Liinta ka dhig 2 jeex. Jeex kastana waxaa ka dhex taagtaa 5 ilaa 10 dhagayare. Waxaana dhigtaa labada jabba meesha aad doonayso inuu tixsiga ka cararo ama ka haajiro. Sababtoo ah tixsiga waxaa dhibaysa urta ka soo baxaysa iyo carafta labadoodaba. Ku abuura gurigaaga yaanyo. Sababtoo ah tixsiga waxa uu dhibsadaa urta ka soo baxaysa yaanyada. Balanbaalistu waxay martaa meerto nololeed kala duwan. Balanbaalis, ukun, diirdiir iyo xaalad ku meel gaara.